halkani waa xarunta barbaarinta ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa lagu xanaaneeyaa caruur kor u dhaafaysa ku dhawaad 100 waxa si joogto ah looga fikiraa nolosha maanta iyo tan mustaqbalkooda si lamida waxay helaan waxbarasho daawo oo intaba free ama lacag la'aan ah iyadoo ay isku xil saartay dawladda federaalka Soomaaliya General Ali Gaab Xirsi waxa uu mas'uul ka yahay qaybta lagu barbaariyo xarunta caruurta agoonta ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu sharaxayaa qaabka loo koriyo caruurta si lamida adeeg ay u qabtaan xaruntan waxaa la furay 25kii bishii 12 2017 maantana waxaa la joogaa 20kii bishii 1 2020 waa fasalka 1 iyo fasalka 6 ardaydan meesha waxay ku haystaan hooy wax kasta oo noloshooda saameeyay daawo cunno tababar xirfadeed iyo iskuul caadi ah dugsi quraankii 12 subaxdii markii salaada ay soo dukadaan oo nadaafada carrada ay joogaan iska laga habrayo oo loo soo labiso ay galaan dugsi quraan quraaca loo soo daayaa waa ku laabtaan waxay ka baxaan 5 saac oo maalinimo wala soo daayaa 1 saac oo nasiina ay qaataan nasiinadaas markii 1 saac dhamaato qada ayaa la geeyaa way qadayaan 7 saac iyo bar waxay galaan iskuulka oo laga soo baxo galabtii 11 saac halkan waxaa ka jira tababar isboorti waxaa ka jira tababar dhaqanka waxaa ka jira tartan iyo tababar diineed oo tajwiishka iyo akhriska quraanka xaaladahaasoo dhan ayaa noo socda annagoo isbaroobeynayna waxaan ka qayb galnay tartan kubadda cagta oo ka dhexeeyey xarumo kale iyo annaka waxaan helnay markii koowaad koobkii kubadda cagta xaruntan waxay ad ah ama ganacsiga ama mataqaanaa hay-ad kaloo ajnabiga loo weydiiyo ma lagu biilo waxaa bixiya daawadooda iyo dharkooda iyo cunadooda table iyo jaraaciisa ka dhacaysa sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu inoo sheegay inay jiraan isbitaallo kaalin weyn ka qaata caafimaadka caruurtan waxaana uu inoo sheegay in isbitaalka kalkaal ay siiyaan baaritaano lacag la'aan ah si lamida waxa uu inta isii raaciyay in dhawaan isbitaalka Digfeer ay ka filiyaan gargaar caafimaad isbitaalka kalkaal dhakhtarka dhagaa dhakhtarka cunaha iyo waxaas isku kombiyuutarka caloosha kul xataa hadday jabaan waa ogtiin ilmaha waa ciyaarayaan waa isjibinaya kalkaal aan leenahay mar labaad mar saddexaad mar afraad waan u mahad celinaynaa maamulkooda hadda ruuxeeda waxaa noo fidiyey gacan oo naga ballan qaaday inay nala shaqaynayaan maamulka isbitaalka Digfeer waxay noo sheegeen wixii aan u kaansano inay noo viisteynayaan dawadana anaga aan farmashaashka ka gadan doono haddayna si aan noo arki doonaa shaqada noocaad contributionka noocaasa ayaan ku soconaa laakiin maaha mid cid lagu dhibaayo maaha mid ay dhibaato hadda ka taagan tahay maaha mid baahi culus ay noo hayso booliiska ayaa kafaalo qaaday aniguna booliiska ayaan wakiil uga ahay goobtan caruurtaas yaryar oo agoonta oo qofka u weyn uu sanadkan 12 gelay kan ugu yarna oo 5 sano jiro sharciga lagu keeno caruurtan ninka dhintay dadkii uu ka tagay caruurtiisa ayaa la soo qoraa si sharci ah si uu helo mushaarkiisi maxkamadda la soo waafajiya dhaxal koob ayaa la sameeyaa meeqa xaasula kadib ilmihiisa ayaa la soo qoraa taliyaha ciidanka loo soo gudbiya taliyaha ciidanka ayaa go'aan ka gaara meeqaan ku dari karnaa agoontan hadda wax ma lagu dari karaa kadib markuu ogaado jiifkii ma la heli karaa cunno waxa ma ahaateenba guryaha yaraanta dhibka maanta jiro waa guryaha oo yar hoos yimaada ayaa la midna haddaanaba ka horreyn waa nala siiya fasalka 1 ilaa fasalka 8 ayaan haysanaa anagana ardayna waxay maraysaa maanta fasal 6 oo 7 u socda
wasaaradda caafimaadka markaan u tagno soo aragta umaana funaanadaha kubadaha mataqaana wixii nooc kabaha tartamay noo qabtaan gobolka banaadir ayaa wixii saasoo kale ah naga garab istaaga gobolku waxay kala sameeyaan halkan waxay usoo diraan takhaatiir dadka dhiigga cunuga indhihiisa waxyaaba badan dhowaan waxaa lagu wadaa in la ballaariyo xaruntan waxaana iminka ka howlgalaya injineeradii dhisi lahaa iyadoo lagu soo kordhin doono caruur hor leh kuwa oo waalidkood ku waayay dhibaatada ka taagan Soomaaliya markaad caruurta eegto moraalkooda kama dareemaysid wax niyad ah inkastoo waalidku yahay lama huraan balse waxa aad ka dareemaysaa furfurnaan ah ka dhabaynta ahdaaftooda